يا ودين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo dhowr qodob oo muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed khaasatan dawladda Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya wuxuu baxay 6 wadan buu tagay ama 6 goor buu wadanka ka baxay 6 goor 2 bilood gudahood weeye dawladda ma dhisna horta arrinka muhiimka waa in laga hadlo arrinta qodobkan madaxweynaha inuu keligii wadanka madaxweyne ka yahay oo ra'iisul wasaare ka yahay oo wasiir ka yahay oo wasiirra ka yahay oo wax walba isagu ka yahay waa ceeb weeye horena way u dhacday iminka ma cusub wax cusub maaha teerabkiisii horena saasoo kale u sameeyey waxa weeye dalka shuruucdiisa in lagu tunto waa laga fiican yahay madaxweynaha wuxuu qalad ku leeyahay in loo sheego weeye ma aha inaan waan toosinaynaa ma aha xumaan waa inaan u qaadan laakiin toosin u arkaa waddanka dawlad buu baahaya dawlad la'aan baa waddanka jirta xukuumad ma laha waddanku ra'iisul wasaaruhu awood ma laha uu dawlad ku dhiso marka waxaan ku talinaynaa waddanka horta marka ugu horraysa in la toosiyo siyaasadda oo waddanku fadhiisto kadib madaxdu ha safreen laakiin waddankii oo aan dawlad lahayn safar baan iska gelayaa wax arrin ma aha ta labaad waxa weeye oo muhiim ah in laga hadlo waddanka daroogo qaad la yidhaahdo oo dunida oo dhan laga soo mamnuucay oo Soomaalida mooye cid kale oo cunaysa maanta aanay jirin inuu madaxweynaha Soomaaliya soo fasaxo uu yiraahdo daroogadii qaadka ahayd waxaan u fasaxay ummadda daroogada qaadka waxay baabiisaa caafimaadka dhalinyaradeena xoogooday baabiinaysaa dhaqaalihii bay baabiinaysaa dalka dhaqaalihii oo dhan bay ka baabiinaysaa oo waxay baabiinaysaa qoysaskii waxa weeye nin iyo naag isqabayaa ma jiro qaadku waa naag weeye waxay baabiinaysaa oo kale cunto cuni maayo qofku caafimaad ahaan buu u dhimanaya muuqaal ahaan baa u dhimanaya xasan sheekh hadduu ahaan lahaa nin daroogada cuna maanta madaxweynaha Soomaaliya muu ahaadeen xasan sheekh hadduu ahaan lahaa nin daroogada qaadka cuna 20 sano oo macallin uu ahaa macallin ma ahaadeen wixii uu isaga naftiisa uu u quuri waayey inuu dhalinyarada waddanka uu madaxda ka yahay u quuro ma ahayn arrinkaas waa arrin khatar ah madaxweynuhu waa inuu baarlamaanka Soomaaliya waa inuu geeyaa si looga doodo oo loo kansalo ama loo ansixiyo go'aankiisa qodobka labaad waxa weeye shirarka aan macnaha lahayn waddamadan iminka EAC-da la leeyahay macno weyn ma laha igaad baa ka nooga muhiimsan annaga inuu waddanka Ethiopia heshiis la galo heshiis la ahaado waa ka qiimo badan East Africa Community annaga waxaas waxba noo tari maayaan East Africa Community waxaa ka qiimo badan Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Eritrea iyo Djibouti iyo Kenya inay inta dariska wax isu ahaadaan oo kala nabad galaan baa ka qiimo badan qodobka kale raba inaan ka hadlo waxa weeye dawladnimada Soomaaliya uma baahna inuu hal qof ay noqoto madaxtinimadii iyo dawladnimadii iyo xukuumaddii iyo ra'iisul wasaarihii iyo xukunkii iyo amnigii iyo ciidamadii wixii oo dhan isaga isku koobay madaxweynuhu waddanka waa inuu furfuraa dawlad xukuumad shaqaynaysa oo isaga looga maarmo waa inay waddanku u leeyahay haddaan waddanku xukuumad looga maarmo madaxweynaha aanu yeelanin waxay noqonaysaa in madaxweynaha isaga saf loo galo waxa keenaya qof kasta oo Soomaali ah oo Muqdisho jooga ama dalka dibadiisa ka imanaya inuu madaxweynaha keligii inuu arko uu raadinaya sababtoo ah awood ma leh dadkii kale ra'iisul wasaaruhu magacaabay waa inuu awood leeyahay oo dawlad dhisi karo ilaa iyo iminka wax weeye wax dawladda lama dhisin marka annagu waa la yaabanahay waxa meesha ka socda waana toosin weeye xumaan maaha cidna ma xumaynayno cidna ma caayayno madaxweynuhu iminka waa madaxweyne qaran qabiil ma khusayso organization ma khuseeyo xisbi gaara ma khuseeyo madaxweynuhu ummadoo dhan buu madax u yahay ummadda Soomaaliyeed dibadda ku nool iyo kuwa gudaha ku nool intaba madax buu u yahay dhaliishiisa waa in loo sheegaa si uu soco ma aha in laga gabado baarlamaanka Soomaaliya haddayna ansixinin qaadka oo ayna hor joogsanin waxa weeye arrinkani waa dembi dhalinyarada Soomaaliyeed laga galayo iyo carruurta Soomaaliyeed soo kacaysa in daroogo lagu soo heshiyo in waddanka loo soo dhoofo war adduunka meel darooga lagu iibiyo daroogada qaadka
uu ka yahay free ma jirto Soomaaliya mooyaane adduunka oo dhan waa laga soo xidhay Kenya waxay la waalanaysaa waddankeena bilaa sharciga ah bay rabtaa inay ka faa'iidaysato doolarka ka gurato caafimaadkeennana baabiiso qaadku caafimaadka iyo lacagta iyo reeraha iyo qoysaska iyo nolosha iyo cuntada wuxuu dhan waa u daran yahay marka madaxda Soomaaliyeed waa inay ka feejignaadaan waxa ay ummadooda u keenayaan xasan sheekh maxamuud hadduu nin qaad cuna ahaan lahaa maanta halka uu joogo muu joogeen wixii aanu naftiisa la doonayn carruurtiisa iyo ubadkiisana aanu la rabin waa inaanu ummadda Soomaaliyeed carruurtooda aanu u soo ansixin oo u keenin midda kale qaadka la soo fasaxayo already dacwad baa ka timi ganacsatadii qaadku waxay ka dacwoonayaan in dowladda Soomaaliya dad xukuumadda ka tirsan in loo xidhay ganacsigii qaadka xukuumadda markaa rag wasiirra ama ra'iisul wasaare ama wax soo maray haddii ay ku lug yeeshaan qaadka soo dejintiisa oo ay commission ku yeeshaan waa disaster kale waa musiibo weyn oo ummadda ku fadhiisatay markaa waxaan ka digaynaa waxyaabaha qaar in laga digtoonaado qaadka baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiya ama diida mooyaane in la soo dhoofiyo waa qalad waxaa kaloo qalad ah in niman xil qaran soo qabtay in ay qandaraas ku qaataan darooga waddanka inay keenaan taas waa qalad kale waddanka Soomaaliya uma baahna maanta in qaad loo soo fasaxo waxay u baahan yihiin maanta Soomaaliya raashin beerahooda ka soo baxa dadka kalluumaysiga waxbarasho dhalinyarada caafimaadkooda la ilaaliyo dadkii Yurub qaadka ku cuni jiray oo dhan iminka waa dad wax qabsado oo qoysas yeeshay ninku hadduu qaadka cuno qoys ma yeelanayo wax ma qabsanayo 10 saacadood oo qaad cuno mooyo 15 kaluu jiifaya waxa weeye madaxda Soomaaliya waa inay ka fiirsadaan waxay sameynayaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.